السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa idin salaamay beeralayda Soomaaliyeed. geedkan waxaa la dhahaa Dillonix Kafra. sidoo kale geedkan fensiga laga waxaa loo yaqaanaa Kayaba ama Kay Apple iyo magac kale xataa waa leeyahay. geedkan waxaa loo isticmaalaa hadda beertan daaradan fiiri waxaa loo isticmaalaa beerta in daarad looga dhigto. saan baana loo waxaynaa drip baa waraabinayo. saad u aragtaan ilaa halkaas wakaasa dripka waraabinayo saasay u baxayaan ilaa meeshaas. marka muhiimaddu waxaa waaye in aad ogaato marka koobaad habku u baxayo iyo inta la isku jirsiinayo. fiiri waxaa la isku jirsiinayaa 15 sentimitir ama ka yar 10 sentimitir. hadhow marka wuu isqabsanayaa wuu isdhaafayaa caleenta hadda soo maartid siduu isku dhaafayo ayakoo yaryar bay hadda saan isku qabsadeen waana kala fogaayeen ogow. qodxana waa leeyahay qodxana waa leeyihiin oo xoolo ku dhaca ma jirto. beerta saana ugu wareejinaysaa drip baana ku waraabinaysaa. muhiimka waa intaas. waxayna u baxayaan maxaa kaa galay dhaqso iyo u baxayaan. kol horaa idiin sheegay geedka fenska loo isticmaalo with time wax yar wuxuu noqonayaa geed maaragtay dhulka qabsado mugdi ah waana intusin doonaa insha allah. isagoo muxuu ahaa noqday fence fiican noqday. dad beerley wareystana waa u tusay. marka qodxana waa leeyahay waana wind blockna wuu noqonaya yani dabayshana wuu kaa celinayaa. sida hadda maaragtay qaybtan fiiri beertan qaybtan hadda looga waxeeyey wakaasaa derbiga loogu waxeeyey oo isaga waa waxa saas soo qabsaday. arka marka wakaasaa siday isku qabsadeen maasha allah u qurxan yihiin. bal ila arka sida loogu taxay iyo siday u qurux badan yihiin maasha allah. waxaana laga dhahaa horumar yaa haddaan wax yar saas dhaho siday isku qabsadeen yacni just check siday isku qabsadeen yacni quruxda loo waxeeyey ay u baxayaan geedahan quruxda yacni fenska loogu waxeeyey ila fiiriya waa wax yar hadday isqabsadaan 1 year cirkay tegayaan sanad gudihii adigu muhiimaddu waxaa waaye biyo inaad waraabiso intay ka korayaan nafaqa iyo wax fiicanna u waxayso. saas bayna isu qabsanayaan quruxdaas ayakoo yaryar bay saas u qabsanayaan. qodax way leeyihiin wax ku dhaca ma laha xoolo ku dhaca ma laha. adigana waxay ku noqonaysaa fence caadi ay ku noqonaysaa. waa kanaa marka iyagoo waaweyn waa kuwanaa siday u baxeen bal fiiri cajiib siday u baxeen waa kuwaasaa fiiri say u baxeen iskula galeen yaa waa iyagii waxasaan iskula galayo quruxda ay qabaan. neef baa sheegtee dabayl xataa kama soo basbaxayso. bal meeshaan say isku haysaan fiiri geedkan qodxaa intay leeyihiin fiiri yaa dabayl miiran waa ka sheeganaynaa dhibaatadaasaa jirto. beerihii dabayl baa muxuu la beeran la'nahay. waxaas waa wax la manage garayn karo yaa geedkan dabaysha xoolaha bahalaha wax walba waa kaa celinayaa. yacni qodaxda intay la eg tahay bal fiiri yacni dhaqsuu koraa. xataa dadka waxay sameeyaan beeraleyda waa la gaabiyaa. mirihiisa waa la helaa waa tuuran yihiin. asaga sidoo kale cutting ama haddaad dhulka geliso wuu sii baxayaa. mirtiisa waa kuwanaa kolley qofkii yaqaano deegaanku arkay waa laga yaabaa in la yaqaano ay Soomaalida taqaano. mirtaasoo kale uu leeyahay magacyo badan. Dillonix muxuu ahaa Kayafa magacyo badan buu leeyahay yaa waana tuuran yahay meel walba siduu isku haysto bal fiiraadi. mirtaas haddaad rabto ka abuuraysaa mirihiisaad kaydsanaysaa waad ka abuuraysaa. haddii rabo cutting baa waxaynaysaa geedka hadda lasoo jara dhulka ku mudaysaa waa waraabinaysaa dhaqsuu u baxayaa. marka wuxuu beerta dhan ka dhigayaa mugdi. dabayl ma soo galayso wax soo galayo ma laha yacni dabaysha beerta wuxuu ka dhigayaa qambu ayada ka dhigayaa yacni si iskula galay halkan asagaaba dhulka isla galaybo. marka geedahan oo kale la rabaa beertiin inaad ku wareegsataan si dabaylaha waxay ka hortagaan. dabaylaha waxay sababaan cudurro sababaan waxaa ka wada cayayaanada sababaan. sidoo kale waxay keenaan geedahaada ama beertaada inay dhibaato weyn u geysto ama greenhouse ka burburo. marka haddaad greenhouse leedahay
geedahan oo kale kugula tali lahaa inaad abuurato insha allah biidni illaah yani adduunka halala jaan qaado waxay dadka waxaynayaan kale waad waxayn kartaa waxa sanadyo badan kuma qaadanayso justice sanad iyo 2 sano 3 sano yuu wax weyn ku noqonaya dhulkaada dhan dabaylaha iyo waxaas ka hortagayaa marka insha allah walaalayaal maaragtay aan isku dayno maaragtay horta inaan horey u socon karno isbedel keeni karno